taako dhulka Soomaaliya kamida inay baxda ma ogol sifa aan ku bixi karnana ma lihin andagu cid awood u leh dalka Soomaaliya cad kamida inay bixisahay ma jirto awooyaasheena diiday aabayaasheena diiday hooyooyinkeena iyo ayeesheena diiday annaga intaan nooleyn hadda diidnay sinna suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta Soomaaliyada aan haysano oo aan waliba hoosta ka qabno in badan aan naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn laakiin haddana aan inaan horumarsano nabadayno maxaan ku raadaay dadka ku nool iyo deegaanada wax aan qurxino aan ku ballanay maanta in ay cad kamida u baxayso dadka Soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan xuduudda gudaheeda kuwa ku jira xuduudda banaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay Soomaaliya walaalaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya ku nool ama Somaliland dadka Soomaaliyeed ay ka tirsan laakiin taariikh la kala leeyahay deegaanka taariikh uu leeyahay taariikh caam ay leeyihiin qarni hore aabayaashii iyo awoowayaashii dalka iyo deegaanka deganaa waxay diideen isticmaalkii caruurtiisu inay ku dhalato dalka heshiisyadii ay galeen waxa kamid ah naag ajnabi ah oo isticmaalka gabdhahooda in aanay ku dhali karin dalka oo haddii ay dhalayaan ay baxaan ay dibadda ilmooda ku soo dhalaan si aanay dalkan xuquuq iyo sheegasho ugu yeelanin taariikh hore oo maqaar ku qoran way maanta haddii ay nool yihiin maxay dareemi lahaayeen maanta qarniga 20-aad awooyaashaas caruurtoodii qaar kamida dalkii aan gobol kamida bixinayna inay dhimalaha nolosha inay hore ka dhimalaha wadno istaagi lahaa u malaynaa haddii ay noolaa lahaayeen daw maaha taariikhdaas sharafta leh oo qiimaha badan ayaa waqooyiga Soomaaliya iyo dadka degan ay ka soo jeedaan walina waa aaminsanahay dadka waqooyiga Soomaaliya ku nool heybadaas iyo sharaftaas wali waa leeyihiin aan qaba berigii Soomaaliya annagu taariikhkii hore aan madaxweynaha ahay oo ayna haysatay arintii badda ay taagneed ayaan ogahay dareenka iyo fariimaha ka imaanaya waqooyiga Soomaaliya sida ay ahaayeen ayagoo cornerka kale Soomaaliya biyo dhul ma ah dad ku nool yahay biyo jadda jiro oo badweynta India kamida la isku haysto dareenkoodii aan ogahay biyihii kale dhinaca kale agtooda aha maanta waa la bixinayaa in la yiraahdo sina suurtagal uma waan hubaa in aanay ku faraxsaneen kuna farxi doonin aanay aqbali doonin waa hubaa waxa intaas dheeran dadka fariinta kale u raba inuu farxi tahay walaalayaal Ethiopia aqoonsi idin ma hayso aqoonsiyan idin siin haday tiraade aqoonsi jira ma aha dad jiro oo Soomaaliyeed oo haddaba jira nabadaysan barwaaqaysanatiin Soomaali inteeda kalena colaad idin ma qabto Soomaali baa leh meeshaasaan joognaa waana u dhimanaynaa waana difaacaynaa meel kastoo ay Soomaaliya aad iyo aad u mahadsantihiin